burburka qoyska maxaa sababa maxaa keena burburka qoyska iyo see loo daaweynaya guriga inuu taagnaadaa la raba mashaakilkan see loo xalinaya ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay fi suurati الnisaa wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaثuu xakaman min ahlihi وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إلهي يقول لي حتى تكبر ظن شقاقة يبربلان إلهي ودأي ونوجعي صار الله يتضوى حكمنا إنك إهل كيسا إيو قبل إهل كيسا هايس أركان الله هدي أي لبان إن أو إصلاح أي دون يعني إلهي سبحانه وتعالى ووافجنا يعني فيري وعيالها oo guriyaha burburina waxa way marka hore waxa way qof oo ehelka aan ahayna waxa dhahday kaali arintan ii dhaxgal guriga mashaakil ka taagan ibki meeshu ka socda koowdi waxa lagu dhahay fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha gabadan ehelay ka dhalat asagana ehelu ka dhashay shalay marka is guursanaysin ehelaas arkay maanta hadii la kala tagayo ehelku waxaa la rabaa haddii ay idinka xallin weydaan ehelku waa inuu soo dhexgalo waddadaasa la rabaa in oo la qaado ayib tan kale ikhwaani guri kasta mashaakilka ka taagan gurihii way burbureen laakiin see loo xallinaya kow waxaa la rabaa in laysu dulqaato waxaa la rabaa in laysu sabro waxaa la rabaa waxyaalaha qaar in macna waxaa la rabaa oo shib laga dhaxo laakiin haddii gurigii uu noqdo laba qof oo sidii dugsi amal ama iskool amal oo ilmo iskoolay amal oo gurigii lagu dhex caytamaayo ilmihii hortooda lagu buuqaayo oo laba qofka kale aan darajaynaynin gurigaas ma taagnaanayo shaydaan waa ka faa'iidaysanaya shaydaan wuxuu jecel yahay inuu gurigaas u burburo ilmahan wax kasta ilmaha maslaxadooda u tanaasul adiga laakiin haddaa dhahdo ani amarkayga haddii la qaadan waayo aniga waxa waaye waxaad doonan samayna lama rabo in wanaag iyo sharaf iyo dulqaad guryaha lagu dhaqaaqo sida ilaahay uu noo sheegay wacaashiruhunna bilmacruuf guri kasta ikhwaani mashaakila ka taagan xataa guryihii saxaabada guryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka dib muxuu imaaday lama dhahayo laakiin see loo xalinaya dhibku waxaa la rabaa in la xaliyo dhibku waxaa la rabaa in la maareeyo oo la soo fadhiisto arrintaas ayaan rabaa inaan oo caawa idinla wadaago aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guryahan allah noo wanaajiyo guryaheena guri khayr qaba allah ka dhigo halisu tanaasulo halis caawiyo labada qof waxaa la rabaa hays aaminaan مسؤوليتنا قف كست هؤلاء قبل المسؤولية لا بها نكن مسؤولية قف كست حقوق ديسا الله لكن تونا لا برا نكن أنا مش أباء أمر كي سعنا هاي قبل دي أمر كي دي دوحة واي ما لا برا أنا نك هدي أو كصوبي ويسوي إلهي قلت لك الحقوق هذا أيضا هذا كائن مع الشماعة هذا هو حالة إن حقوق دي الأولى هن أدفرتي كذب أنا مش أبكى ما صعميش هذا أيضا وحال الربا هدي أو حقوق ذي كسر بعويس أو أمر جديد أي نقطة أيضا حقوق مرا ما كان لا بد وحال الربا إن رسوس الدوادو وقريها لا تغضو أو وحال الربا لسآمنا إلى القرآن وقريها وعاشروهن بالمعروف مشاكل القريها مركا ويبتن مركا قريها وحال الربا إن ليس صبر انت سكروا لك صلى الله على سيدنا محمد